wafdiga socday beesha caalamka ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa waxay ka koobnaayeen dalal kala duwan oo Somaliland kala shaqeeya dhinaca doorashada. Ugu horeyntiiba waxay kulankoodii ugu horeeyay la qaateen gudidii iskood isku xilqaantay ee dhexdhexaadinta ka dhexwaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Kulankan oo saacado badan qaatay kadib waxaa warbaahinta la hadlay Axmed Faarax oo ah gudoomiyaha gudidaasi isagoonan ka warbixiyay kulankan saacadaha badan qaatay waxa uu ku saabsanaa. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. waxay noogu yimaadeen si ay noola kulmaan, waxaanay la kulmayaan madaxweyne xukuumadda iyo labada xisbi ayay la kulmayaan. annaga maanta la kulannay waxaanu ka wada hadalnay mahadnaqay noo mahadnaqeen hawshii aan ku jirnay ee dhexdhexaadinta, inay jecel yihiin inay Somaliland nabadgelyo ku waarto. taas raga kale aan u dhiibayaa inta kale, laakiin waxaan ku darayaa waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda, madaxweynaha, xusbiga kulmiye, xusbiga wadani madaxdiisa, xusbiga ucud sidii wanaagsanayd ee ay noo qaabileen muddada aan 26 cisho aanu ku jirnay hawshaas. waxaanu kalaanu aad uga mahadnaqaynaa in ay naga aqbaleen go'aamadii aanu soo jeedinnay, inay naga aqbaleen baanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa. danta dalka ayaa wax walba ka weyn. danta dalka ayaan intaa u joognay. raggaa mee aad joogtaan nin walba shaqadiisii buu ka yimi hawshiisii. marka waxay iga tahay un mahadnaq inaan u mahadnaqo dowladda iyo xisbiyada mucaaradka. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xusbiyadii mucaaradka ahaa iyo xukuumigii iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo dhan waan u mahadnaqaynaa ee naga aqbalay arrimahaanu soo goynay ama soo jeedinay naga aqbalay. baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay waa mahadsantihiin.